gabadh muslimada Soomaali ah oo Congress-ka Mareykanka ku jirta ayaa kelimo sax ah ku hadashay Israa'iil oo xadgudubka la arko wada sida ay Mareykanka dhaqaalihiisa uga faa'iideysanaysay hal taqriido yar ka qortay Mareykankii waa kacay mana fadhiisan madaxweynihii waa kacay ila loo fagaareeyay gabadhaas iyo madaxweynihii dhanaayo dalka labadii xisbiba waa kaceen wadanka ka tirsan jiray dimuqraadiga iyo jamhuurigiiba waa kaceen gabadha yarta la dagaalamaya xaqiiqay sheegtay markaas waxa la leeyahay hal iscasisho hal eriyo leesh boqolaal madow markii la laayana macna male masaajida muslimiinta marka la galana macna male madaxu ka jiray wax ka soo qaad male risaaladaasi waxay ku socotaa qaar badan oo inaga mid ah oo ay cajab gelisay reer galbeedku oo ay la qumanaatay thaqaafada reer galbeedku oo u qaatay adduunkii inuuba ku dhamaaday thaqaafada reer galbeedka oo liberaliyiin iyo cilmaaniyiin ah oo najiidayo noo jiidayo in reer galbeedka ku dayano iyo dhaqamadooda akhlaaqdeena iyo dhaqankeena iyo hidaheena iyo waxeenina aynu ka tagno risaaladaasi waxay ku socotaa fasira waa in kale dadka ha lagu dayday reer galbeedka noo fasira maxay yihiin waxyaalaha noocan dhacdooyin nin walba akhrinaya way maanta wax qarsooni ma jiro inta kadib rasaa'il dhowr ah ayaan doonayaa inaan muslimiinta u gudbino khaasatan muslimiinta aqaliyadka laga tiro badan yahay dhulalka gaalada ku nool qodobka koobaadi waxa weeye risaalada koobaadi waxa weeyaan diintiina ku sugnaada aqeedadiina ku sabra wixii dhacaya ha dhac hal idinku dilo laana wala wada dhiman geeridu waa xaq laakiin inaad tawxiid ku dhimato iyo inaad gaalnimo ku dhimato farqigu intaas waa inaad dhimato adoo tukanayo lagu dilo waa shahaada waa dhimashatii ugu qiimo badnayd waa ruuxa muslimka ah haddii diintiisa loo dilo oo aqeedadiisa loo dilo oo akhlaaqdiisa loo dilo xataa gogashiisa iyo gurigiisaba ha lagu dilay waa shahiid ilaahay baan uga baryaynaa tabaaraka wa tacaala inuu shahaadadooda aqbalo muslimiinta la leeyahay nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayhi waxaa ka sugan isaga iyo saaxiibkii abubakar iyo cumar iyo cuthmaan baa waxay fuuleen buurta uxud ayagoo buurta korkeeda saaran ayay buurtii dhaqdhaqaaqday way gilgilatay way ruxatay markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam buurtii la hadlo wuxuu yiri uxudow dhaqdhaqaaqa jooji waxa ku dul saarani waa nabi iyo siddiiq iyo laba shahiid waay nabiga garanay صديقنا قرنا وأبو بكر لبدا الشهيد ييه وعمر يا عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين عمر وحال لقد لي مقالة مدينة أسقو جورا فرين دقال لقمد لين أسقو مسلمين تتوشين يا مساجد كالنبي صلى الله عليه وسلم بار للضاوعي كذب السيدة سو كل انتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومع ذلك النبي قحوق مرخاتك عينه الشهيدية عثمان نسيدو كلمة قالة مدينة لقد لي وقال كعدون سميسو خوارجي بلا يخربنا بعد شيء مقالة النبي قال لقد لي صلوات ربي وسلامه عليه يسقون فرنت قال لقمد لين مع ذلك النبي يقول حكوتلوا إلا الشهيدين يهين لماذا؟ لأن عقيدة اللود لي لأن الدور كي يكالين تي دين تنقلها أيام فافين تهذا اللود لي عدو باد لي ما دام الروح الدين تسلود لي مسلم كهو شهيد حتى مساجد هاللقد له كوشي سهاللقد له بناك هاللقد له سيدا استرادت جيري في عوي إناد قبستان ودينتي نكون متان وتكون نولاتان وحكى في عن المجر إلهنا القرآن الكريم كوحو ينقو بري دروس بو ينقو سيردتك مسلمين تمركي حالات أدقلان إني دين تودا كل دينتان وأين مرنا الدين تودي أخلاق دودا كان نقنن وحكى استو إذن قبصة مركي الدين تكفر أذيك حجابك كفر أذيك صلاة دي مساجد كفر أذيك أخلاق ذا وناكسن كفر أذيك كل نولادا كل دينتان